daawada ku soo dhawow fariin ka timid dhibane liibaan maxamed cabdi fadlan akhriso oo gudbe liibaan maxamed cabdi waxa uu yiri maxaad iga daawanaysaa miyaadan ogeyn inaana waxba cunin waxba cabin dhaqdhaqaaq karin dareen uusan jirin dan yaraan ahay garab ana la mooyaan haysan miyaadan ogeyn inaan nolosha cidhiidhi kaga jiro ma hadlo baahida ma sheegan karo waxaan u baahnay kuma dhawaaqi karo saxarada iyo kaadidu way iska socotaa mana cishan karo ilmaha ayarka sanabu koomaha ku jiray wax taalo iyo waxa wadaan dalka dabadiisa dibadana dalkana wax laga ma qaban karay dibadana waxba uguma awoodo aan ugu geeyo sidaas ay tahay halka ciyaal banaanu nolol maalmeedis raadiyayo ka taga xataa oo lama joogo oo bariiska wixii aan siin lahaa isaga kuwa kala suuqan uga raadiyo marka waxaan umada Ilaahay ka codsanaya iyo dadka walaalaha iyo umada muslimiinta meel kasta joogaan doonaya inay iiga wada damqadaan umada islaamka iyo walaalahaygaba oo ay iiga damqadaan ilka cunuga waxana iigu qabtaan dalkana wax laga ma qaban karo dalka dibadiisa wax laga qaban kara sidaas aan ugu codsanayaa sidaas aan umada islaamka oo timi madax iyo shacab toona ma jirto miyaadan ogeyn inaan walaalka ahay danta ay badayn aan ku bariyo wallaahi danta ay badayn aan ku bariyo baleeg noloshayda waad socotaa waad cabtaa internet baad ku jirtaa meheradahaad fadhidaa waad qosashaa waad hadashaa waad faraxdaa garab baad haysataa laakiin anigu waxaan ahay dhibane intaasoo dhan aan haysan miyaadan ii qoodhin kontonka city halka $1 $2 $3 iyo wixii la mid ah xataa waxaad ii quuri wadiina dhibtay inaad dhibkayga gudbiso walaalkay ama walaashayow waxaan ku jiraa geeri iyo nolol ama waxaan u dhaxeeyaa dhimasho iyo nolol ciddii waxay garan lahayd waa adi adduunka la isugu gargaaraa fadlan ii gargaar walaalayaal